الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. ودرسنا saddexaad ee tafsiirka juzka cama maanta waxaan qaadanaynaa in biidni illaahi tacaala wacawnihi suuratu cabasa, magacaas oo ah magaca suuraddu ku bilaabato cabasa watawallaa ayay leedahay. waa suura makiya markay ku soo degtay bacda suurati wanajmi ayay soo degtay. waa 42 aayadood. suuraddaani waxay ka kooban tahay 3 maqdac ama 3 qaybood. qaybta koowaad ee haddaan akhrinay aayadda koowaad ilaa aayadda 16aad. aayadahaas waxay ka warramayaan canaan la canaantay rasuulka maxameda sala allahu calayhi wasalam ayay ka warramayaan. qaybta ku xigta oo ah aayadda 17aad ilaa aayadda 32aad waa atadkira waalcibra, dadku inay waana qaataan oo ay fakaraan oo ku fakaraan aayaadka kowniga naftooda waxa ku saabsan iyo waxay cunahayaan ayay aayadahaas aada uga hadlahayaan. qaybta u dambaysa oo aayadda 33aad ilaa 42 qiyaamaha maalintaada adiga qof kasta sugaysa ayay ka warramayaan. suuraddan sabnusuul bay leedahay sida isu waafaqeen mufasiriintu. xilligii maka la joogay nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam wuxuu aada ugu dadaalahayay in dadku ay diinta qaataan oo ay soo muslimaan, siiba ragga madaxda ah oo dadku ay ka dambeeyaan oo hadduu muslimo dadku ay soo raacahayaan. allah yidhi subxaanahu wa tacaala lacallaka baaqicu nafsaka allaa yakuunu mu'miniin. nebiga ilaah baa u turay subxaana wa tacala nebigu suu u dadaalahayay. nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam oo maalin la fadhiya niman odayaala oo gaalada quraysh ka mid ah, cutbata ibnu rabiica, abaajahl ibni hishaam, cabaas bni cabdimudalib rag ay ka mid yihiin, isagoo diinta u bandhigahaya oo la fadhiya nebigu sala allahu calayhi wasalam ayaa waxaa u yimid nin muslim oo muumina oo rumeeyey oo saxaabi ah, ibnu ummi maktuum. cabdullaahina magaciisa waa la yidhaahdaa, cabdullaahi ibnu ummi maktuum. nin dhoolaa buu ahaa. uma jeeda nebiga sala allahu calayhi wasalam inuu rag odayaala la fadhiyo oo gaalaah oo diin u sheegahayo, waa indhoole. nebigu u yimid sala allahu calayhi wasalam nebigoo mashquul ku ah nimankaa madaxda inuu hanuuniyo oo rajo uu ka qabo hadday soo muslimaan in dad badan ay raaci doonaan. wuxuu yaa rasuulallaahi qur-aanka iyo akhri waxay bar ayuu yidhi. wuu hadla. nebigu uma jawaabin sala allahu calayhi wasalam, mashquul buu ahaa. qur-aanka marka maadaama nebigu sala allahu calayhi wasalam uu nimanka mawdayaasha oo gaalada ku mashquulay isagoo rajo ka qaba islaamkooda, ninkan muuminkaa oo ninka wanaagsan nebigu uu ka mashquulay, canaan baa nebiga kusoo degtay sala allahu calayhi wasalam. lagu canaantay nebiga calayhi salaatu wassalaam nimankan nebigu inuu daneeyo oo ihtimaam siiyo ninkaa indhoolaha muslimkaa nebigu uusan u jawaabin ayaa canaan ka soo degtay. canaantaas macnaheedu waxa weeyaan
islaamka dadkoo dhan baa u dhexeeya, dadkoo dhan buu u dhexeeyaa. xaqana qofkii rabaa lagu hormariyaa, qofka raba shayga ayaa lagu hormariyaa. canaanta marka waa canaan dabacsan, dabacsanaan bay ku bilaabataa. cabasa watawalla, bismi illaahi araxmaani araxiim. cabasa, cabuuska wax leeyahay wejiga. qofku markuu shay hadduu dhibsado shucuurkiisa ay ka muuqato wejiga xoogaa u laalaamo, weji kaduud ayaa la yidhaha qofku wejiga xoogaa maaragta oo dareen dhibsiya qofka markuu ka muuqdo ayaa la yidhaha cabasa. marka qur-aanka wuxuu ka cabiray oo nebiga marka lala hadlayay sala allahu calayhi wasalama cid maqan baa laga dhigay. canaanta toos lagama dhigin, dib bay toos ka noqon doontaa. waa canaan la difan waaye. canaanta waxaa soo jeedinaya rabbulciza jala jalaaluhu. isla marka haddii toos rabbi ka dhigo waxaa dhici karta nebiga inay culays badan ku noqoto. toos lagama dhigin marka waxaa la cabasa, qof maqan baa laga dhigay. cabasa waa weji kaduuday, waa weji tubay, watawallaa waa ka jeestay. nebigu ma hadlin sala allahu calayhi wasalam, laakiin shucuur waxaa ka muuqday inuu nebigu jeclaan lahaa sala allahu calayhi wasalama inuu ninkan u kaadiyo oo uu sugo inta uu nimankan u dhammaynayo. laakiin nebigu ma hadlin calayhi salaatu wassalaam. shucuurkii nebiga marka oo ahaa inuu yaro sugo, inuu jeclaan lahaa nimankaana uu dhammeeyo, rajada ka qabo, shucuurkaas ayaa ilaahay cabiray subxaanahu wa tacaala. dareenkaas yani cabasa waa weji kaduuday, waa weji tubay, xoogaa wejigaa yaro haragiisa xoogaa laalaamay, dareen dhibsiya ka muuqday wejiga. cabasa waa weji tubay, nebi maxamed baa loo jeedaa sala allahu calayhi wasalam, lakiin qof maqan baa laga cabira, asagaa la hadlaya lagu soo dejiyey. watawallaa waa jeestay, oo muxuu u jeestay? an jaa'ahu inuu u yimid dartiihu asaga nebi maxamed sala allahu calayhi wasalama alcamaa indhooluhu. nebigu sala allahu calayhi wasalam waa weji kaduuday, waa weji tubay, xoogaa dareen dhibsiyaa ka muuqday. limaada? waana ka jeestoo lama hadlin. oo maxaa u keenay weji kaduudka iyo jeesiga? an jaa'ahu inuu u yimid nebiga sala allahu calayhi wasalam alcamaa indhoole, nin indhoolaha u yimid. indhoolaha magaciisa lama sheegin, alcamaa baa laga cabiray. culammadu waxay raaraadiyeen xikmadda ku jirta maxay tahay in la yidhaha alacmaa, indhoole. dhowr macnay sheegeen. mid waxay yidhaahdeen ninkan saxaabiga indhoolaha nebiga uma jeeda sala allahu calayhi wasalama, inuu mashquul yahay uma jeedin. hadduu u jeedi lahaa wuu sugi lahaa. cudurdaar bay u tahay marka, waa indhoole, inaa mashquul tahay kuuma jeedin adiga, xaqdoonna waa aha. taas waa xikmad wey ay ku fasireen culammadu. xikmadda labaad waxa weeye alacmaa, ninkan indhoolaha wuxuu rumeeyey xaqii isagoo indha aan qabin. kuwiinaan indhaha qaba oo wax arkaya waa inka fiican yahay, waa nin inka wanaagsan, qalbigiisa caafimaad qaba. fa innaa laa tacmal absaaru walaakin tacmal quluubu latii fi suduur. waa nin fiyow oo wanaagsan oo kuwiina indhaha qaba ka fiican. xikmadda saddexaad waxay yidhaahdeen maadaama ninkaa indhoola uu ahaa oo uu dhiman yahay, waxay asaga in la hormariyo. qofkan lixaadkiisa wax dhiman yihiin, asaga in la qadimo oo asaga la hormariyo ahayd. waa muslim kow, haddana waa indhoole. indhoolaha marka in si gaara loogu turo oo loo naxariista ahayd asaga oo la hormariyo. cabasa waa weji tubay nebigu sala allahu calayhi wasalam, watawallaa waa jeestay. an jaa inuu u yimid hu nebiga sala allahu calayhi wasalam alcamaa indhoole. canaanta marka toos baa laga dhigayaa. hadda tii hore waxay ahayd waa laga dabday nebiga sala allahu calayhi wasalam. wamaa maxaybaa yudriika ku ogeysiiyey nebi maxamedow sala allahu calayhi wasalama, yaa kuu sheegay adiga? lacalahu waxaa laga yaabaa ninka indhoolahahi yazakkaa inuu dahirsanaado. ninka aad ka aamustay oo aadan la hadlin yaa kuu sheegay adiga? waxaa dhici karta ninkaani inuu khayr badsado. yazakkaa waytadahar, muslim buu ahaa, islaamnimaduu sii badsanayaa, nin daahiruu noqonayaa. oo nebiga sala allahu calayhi wasalama waxaa ka mid ahaa shaqada nebiga ataskiya. waladii bacada fi lummiyiina rasuula minhum yatluu calayhim aayaatihi wayusakiihim
ويعلم الكتاب والحكمة تزكية waxay ka mid ahayd shaqadii nabiga sallallahu alayhi wasallam waxa ninkan waxa laga yaabaa adiga miyaa ogtahay nabi maxamedow waxa dhici karta ninkan ama dhabba ah inuu dahirsanaado oo marka diinta u sheegtid uu si fiicnaado oo yadhakkaru ama uu waansamo oo isxusuusto oo fatanfacahu ay anfacada asaga adhikra waanadu ama uu waansamo oo وحصوصته أنا وحو هالمانسنا إنه حصوصته وحصوص تاس أي أنفع أصغى ها تاس لقى يابا وما يدريك محاكو ويسين محمد صلى الله عليه وسلم لعله واحد عقرتا ولقى يابا هو نين كان أو إنه لهاي يزكى إنه ظهير سناده وناك سناده سيفي عناده مركو دين تدريست أو يذكر أما هو سمو فتنفعه الذكرى وانده أي أنفعه وحصوصته معناها markii diinta loo sheego u xalmaansanaa qoladii kale marka ama man qof waa gaaladii nabigu la fadhiyay sallallahu alayhi wasallam istaghnaa maarmay xaqa ka maarmay al-istighnaa danka mala diinta qofka isla weyn oo qabka weyn wax ismooday oo madaxda oo aan danba ka lahayn diinta iyo iimaanka iyo xaqa fa anta adigu miyaad lahu manka tasadda u banbaxaysa كاميا أو بنبحث ولا فريسان ساسود وينسا عنان أذق وين حاجة سمجي ده عنان تيور وكا أذقته قف عن دين تبدن كلا هنا سو أو كم مارمي أو مدحني ما يقبوين يحولي وحن سكوف اسبدها هي ما هو بنبحثها وما عليك كركا معها والنفي لقدقه وما عليك كركا وحبك ما صارنا ألا يزكى إنه صن ظهير سنة إنه صن مسلمين هذا واحد دمي كما صارنا يزكى دم وإسلامنimadi inaysan soo muslimin oo aysan istahirin wax ka saaran ma jiraan oo nafi laga dhigo istifhaam waa laga dhigi karaa wama alayka maxaa korkaaga ah oo ka saaran alla yazakka mankaas asagu ka maarmay diinta inuusan dahirsanaane muslimin adiga maxaa ka saaran ma jiraan waxa la soo celiyay haddana indhoolihi wa amma man qof jaa'aka kuu yimid yascaa asagoo degdegahaya kii asagoo degdegaya kuu yimid wa huwa walxaal huwa asagu yakhshaa allow ka baqaayo oo alla ka cabsi uu ku jiro fa anta adugu canhu xaggiisa talahaa ma ka mashquulaysaa baa layidhi waa canaan adagu yaa iyaduna qof asagoo degdegaya kuu yimid mid xaqaba ma rababa danna kama leh kan asagaaba isagoo socdo indhoolaahu yimid wax ma arkaba oo xaqdoona alla ka baqaya fa anta canhu talahaa ma ka mashquulaysaa nebi maxamed sallallahu alayhi wasallam kallaa saa ha u laabanaya sandhicin mar dambe arrintaas kallaa ka joog wey kallaa zajrun ya radcun ka joog yaysan dhicin tanoo kale bimacnaa diintu waxay ka duwan tahay waxyaalaha dadku ay ku qiimeeyaan waa ka duwan tahay qiimeynteedu xoolo iyo madaxnimo iyo ciduu ka dhashay iyo waddan uu ka dhashay iyo diintu wax kuma qiimeyso ina akramakum cinda allaahi atqaakum haa taas wax lagu qiimeeyaa waxay diintu ku qiimeysaa ilaahay yaa u dhow yaa toosan iimaankiisa akhlaaqdiisa qofka lagu qiimeeyaa amaa qiimeynta dhulka bini aadamka waa madaxa iyo xooluu haystaa iyo ree hebel buu ka dhashay iyo waddan hebel iyo midabkaasuu leeyahay salaam wax kuma qiimeeyo qiimata samaa waxa weeyaan attaqwa ninkan marka indhoolahahi raggan waa ka fiican yahay waa gaalo madaxba ha ahaadaan laakiin waa muslim ilaah buu rumeeyey waa nin toosan ninkaasaa ka mudan in laga hormariyo raggan madaxda asagaa mudan waa risaalo marka iyo fartiin ku socota dadka muslimiinta oo dhan siiba ducaadda ee culammada qiimaynta dadku waa dadku say alla ugu dhow yihiin subxaanahu wa tacaala cidda xaqdoonkaa la hormarinaya miskiin ha ahaado faqiir ha ahaado daayar ha ahaado isagaa la soo dhoweynaya nebigu sala allahu calayh wasalam aayadahana markii jilsadii dhammaato nebigu oo meeshii ay nimayn ka tageen noolihiina iska tegey aayadahana ku soo degay nebiga sala allahu calayh wasalam ninkan marka wuxuu ahaan jiray waayihii dambe mu-adinka nebiga sala allahu calayh wasalam salaada subax
aadaanka labaadoo addimi jiray kan hore bilaal baa addimi jiray kan labaad isagaa addimi jiray nebigu sala allahu calayhi wasalam laba goor baa nebigu uga tegey madiina nebigu maruu ciidan wato oo duulaan aaday madiina looga dhigay madax cabdullaahi indhool u ahaa saxaabiga weyn waayo waxaa lagu yidhi nabiga sala allahu calayhi wasalam kallaa ka jooga ha u laabanin arrinta yaysan dhicin mar damba tanoo kale in nin xaqdoona oo muumina ka mashquushid oo aad ku mashquushid niman aan xaq rabin ee qooqaya kibray nebiga dadaalka ahayd sala allahu calayhi wasalam nimankan soo muslimaan innahaa aayadahan suuraddan ama suuradoo dhan ama qur-aanka way celin kartaa innahaa aayadahaani ama innahaa suuraddaani ama innahaa qur-aanku tadkiratun waa waanay caqli celin faman shaaa qofkii doona dakarahu waa ku waansamaa waa caqli celin weeye miisaanka islaamka uu leeyahy waxa weeyaan waxaa qiimo leh qofka ilaahay yaqaana ee alla ka baqahaya ee toosa kaasaa taqdiir iyo sharaf iyo horumarin leh kii qooqay xaqa aan rabin maya kanaa ka horeeya fii suxufin aayadahaas ama suuraddan ama qur-aanku fii suxufin xaashiyuu ku yaallaa mukaramatin la sharfo oo la darajeeyey oo xag alle subxaanahu wa tacaala qiimo badan ka leh marfuucatin la kor yeeloo meel sare yaalla samaawaadka ama qiimo ahaan sarreeya mudaharatin la dahiray oo aysan jinni iyo shayaadiin iyo aysan u tegi karin biaydii safaratin malaa'igta u dhaxaysa rabbi iyo ambiyadana gacantooda ku jira safar waa safiirada safiirka waa taqaaniin waa rasuulka ama qofka matalhaya dowlad oo dowlad kale la joogaa safiir la yidhaah waa fartiin qaadi safiirku fartiin qaado waaye malaa'igta fartiimaha ka soo qaada rabbi subxaanahu wa tacaala ee rasusha u keena gacantoodii xaashiyahaas ku jiraan safaradoo kiraamin wanaagsan bararatin ah kuwa rabbi adeeca subxaanahu wa tacaala nebiga sala allahu calayh wasalam markii la canaantay haddana waxaa la tilmaamay qur-aanka suuraddan ka mid tahay aayadahan haddaan akhrinay qur-aankoo dhan waxa uu yahay waa waano kallaa inahaa tadkira faman shaaa dakara fii suxufin bay ku yaalliin aayadahaas ama suuraddaani ama qur-aanku warqado mukaramatin la darajeeyey oo karaamo alla agti kale marfuucatin la kor yeelo meel sare yaalla looxulmaxfuudka ama malaa'igtaa ka soo qorata xaashee kale ugu qoran yihiin mudaharatin la dahiray oo gacmo jinni iyo shayaadiin aysan u dhowaan karin biaydii safaratin malaa'igta u dhaxeeya ama u dhaxaysa rabbi iyo rususha ee safarada la yidhaha fartiimaha soo qaada rabbi ka soo qaada u keena rususha gacantooday ku jiraan safaradoo kiraamin wanaagsan bararatin rabbi adeeca subxaanahu wa tacaala oo aan caasin xadiidka nebi muxuu aha sala allahu calayh wasalam qofka qur-aanka aada u yaqaana almaahir bilqur'aan maca safarati alkiraami albarara qofka qur-aanka aada u yaqaana oo maahirkaade haddii aqoon keliya maan dee ku dhaqma wuxuu la jiraa maca safarati alkiraami albarara qofka qur-aanku adaga yahana waxaa la yidhi laba ajar buu leeyahy alladii yatactac wahuwa calayhi shaaq low ajaraan laba ajar buu leeyahy dhibkaa qof uu ka marhayo qaybta marka waa qaybta hore qaybta labaad waxay ku saabsan tahay atadkira oo ah bini aadamka la xusuusinayo inay fakeraan inay tadabburaan aayaadka kowniga waxay ku bilaabanaysaa qutalal insaanu insaankii baa la lacinay lacnad ha ku dhacda bala ha ku dhacda insaanka waxaa loola jeedaa culimmadu waxay yidhahdeen gaalkaa loola jeedaa insaanku waa magaca guud oo bini aadam o dhan baa iska leh laakiin si gaara khaas waxaa loola jeedaa gaaladii nebiga la joogtay sala allahu calayhi wasalam ee madaxda ahayd ee xaqa diidanayd baa ka mida waa lacnad baa ku dhacday waaba ku dhacday waa xaqiraada waaye nooca maa waa habaar qutila waa majhuul qur-aankana meel qutila alkharaasuun qutila waa la lacino lacnad baa ku dhacday alinsaanu ina aadam waa gaalkee maa agfarahu gaalnimadiisa maxaa darnaysiiyey gaalnimo badanaa aba la yaabe war bini aadamow balaaya ha kugu dhacdee gaalnimadan maxaa kugu qaaday
inaa gaalooda maxaa kugu sababay limaada ma sabab yani gaalnimadiisa lala yaaban yahay gaalnimadan daran ee ku dhex jirtid maxaa kugu qaaday haye maa fakartid qutila linsaanu insaankii maa la lacinay lacanadaa ku dhacdee waaba ku dhacday maa agfarahu insaan gaalnimadiisa maxaa darnaysiiyey maxaa ku qaaday gaalnimada bal haba gaalaba maa fakaro min ayi shayin sheegeeba maxayba min ayi shayin maxayba khalaqa alla ka abuuray hu insaanka bal insaano maxaa alla ka abuuray maxaa alla ka abuuray khalaqa faacilku alle moogta min ayi shayin maxayba khalaqa uu ka abuuray alle hu insaanka min nudfatin biyaa laga abuuray biyo yar oo la yihahdo mani min nudfatin biyo nudfa candhuuf waa biyo mani baa khalaqa alla ka abuuray hu insaanka biyahaasaa insaanka laga abuuray qof kasta waa qirsan yahay maxaa laga abuuray hooyo aabbaa isguursaday waa isbarakeeyeen biyahaasuu hooyo ku shubay maaragtay makaankeeda ilmagaleenkay tageen adaa lagaa abuuray qof inkarsan ma jiro bini aadami hadda waxbaa la ogaaday biyahaas waxay ka kooban yihiin xayawaana manawiya waa nool yihiin waa kadaa waaba aad ba hadda loo sii ogaaday biyahaasaa laga abuuray faqadara alla waa jaangooyey hu nudfadii abuurista insaanka alleh waa qadire taqdiir jaangooyntu waxaa weeye heerarka ay marhayaan nudfatan biyay ahaayeen calaaqatan xinjir bay noqdeen mudqatan caadi hiliiba haddana naf baa la geliyey harag baa la huwiyey lafay noqdeen indhaa loo furay dhagaa loo furay af baa loo furay carab baa loo yeeray waa yaab fii suurati muminiin waa aragtay sida rabbi ka cabiray subxaanaه wa tacaala ثuma khalaqna nudfata calaqatan fakhalaqna calaqata mudqatan fakhalaqna mudqata cidaaman fakasawna cidaama laxman ثuma ansha'naahu khalqan aakhar fatabaaraka allaahu axsanu lkhaaliqiin cajaa'ib soomaa min nudfatin biyaa laga abuuray candhuuf biyo yar mani min nudfatin biyo baa khalaqa alla ka abuuray hu insaankii faqadara alla waa jaangooyey hu nudfadii hu khalqigii insaanka alla wuu qadaro waa jaangooyey maa lakum laa tarjuuna lilaahi waqaaran waqad khalaqakum adwaara calooshuu ku jiray 9 bilood ilmagaleenka ثuma ka bacdi asabiila wadadaa yasara alla u sahlay ثuma yasara alla waa sahlay asabiila wadada hu insaanki ama hu wadadiibu u sahlay insaanki wadadaa maxaa lagu fasiray wadada culamada qaar waxay ku fasireen makaanka hooyada meeshaanu ka soo baxay hadda qofka dhan oo bini aadamka meeshan yartaa ka soo baxay oo furan waa la soo foorariyaa qofka madaxu soo hormarsadaa markaasuu soo baxaa markuu soo baxa haddii la yidhaha dhakhaatiirta ku celiya qof ku celin karta ma jirto haddaan rabbi saalina ma soo bixi karo halkaasaa soo martay halkaas rabbaa kuu sahlay subxaanahu wa tacaala culamada qaar waxay yidhahdeen sabiilka waxaa looga jeedaa waddada khayrka iyo waddada sharta looga jeedaa laakiin tan aan u daynaba kase culamada qaar ay xoojinayaan uma sabiila yasarahu waa waddada khayrka iyo waddada sharta laakiin tan aan u dayno oo markaad siyaaqa fiirisid qaabka ay aayaduhu u socdaan waa makaankii hooyada uma sabiila uma yasara alla waa sahlay asabiila waddadii yasarahu insaanka waddada inuu ka soo baxo ayaa alla u sahlay in hooyo ka soo baxo makaankeeda abubakar baa warqad qoraa la yihi boqor oo boqorada romaan ka mid a sun maxaad iskula weynaanaysaa 2 goor ayaa waxaa soo martay meesha laga kaadiyo ayaa 2 goor ka soo baxday marka horena biyaha aabe halkee ka soo baxeen biyaha aabe meesha laga kaadiyo sooma bay ka soo baxeen marka dab waxay ka soo baxay adoo nool ila ku abuuray waxa ka soo baxaysa makaanka hooyada marka maxaad iskula weynaanaysaa 2 goor waxaad soo martay meesha laga kaadiyo ayaa soo martay insaanka waa soo baxay waa koray waa weynaaday halee ku dambaynaya ثuma ka bacdi amaata alla waa dilay hu insaankii amaatahu alla waa dilay insaankii fa aqbarahu alla waa qabriyey alla insaanka waa dilay muduu noolaa adduunyadu raadeeyey raadka bacdi waa dhintay nicamta ilaahay maxaa ka mid a
nicamta ilaahay waxaa ka mid a geeridu waa raaxo insaanka in la dilo waa nicmo ilaahay sax waa musiibo laakiin waa nicmo min allaahi in insaanku uu dhinto hadday soo gaaraan ka waran awowga aabbaha iyo awowga iyo abkowga iyo abuulanka iyo absaxanka ka warran hadday soo gaaraan intaas ka warran inta hadday soo gaaraan halkee lagu haynayaa yaa hayn kara waa la nacaya qofku noloshaa nacaysa xataa adiga soo maaha marka in lagu dilo waa nicmo ilaahay maxaa nicmaa kalaa in lagu aaso dii sida xayawaanka bannaanka lagu dhiga ka waran islaamka waxaa ka mid a qiimihiisa qofka in la aasa waa waajib oo ciid la qariyo sida gaaladan hala gube iyo maxaan ku ihahdaa xayawaanka hala siiyay maaha waa lagu aasin uma amaatahu alla waa dilahu insaankiibu alla dilay fa aqbarahu alla waa qabriyeeyey macnaa wuxuu amray in la qubuureeyo in la aaso oo qabri laga dhigo oo qabri la geliyo ayaa alla amray hay qabrigi intaa waa la ogolyaha soo maha intaa marun ka jiraa bini aadamka qofka in la abuuray inuu hooyadii dhashay inuu ayaa noolaa inuu dhinto in la aaso midda u dambaysa marka ayaa aada u muhiimsan oo in badan su-aal laga keenay goormaan soo bixi doonaa goormaa qiyaama dhici doonaa mataa haada alwacdu alla wuxuu yidhi humma markuu qabuurta galay kabacdi oo qabriga lagu aasay idaa shaaa hadduu alla doono ansharahu waa soo bixinaya insaanka alla hadduu doono wuu soo bixin markaa leedin goormaan soo baxaynaa shaqo kumala rusushu nebi moxamed sala allahu calayh wasalam shaqo kumala soo bixinta soo bixintu waa shaqo ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala alla markuu doono alla wuxuu leeyahay qabuuraha ka soo saara malagi baa leeyahy buunka yeeri soo bixi dadka marka waa shaqa alla leeyahy subxaana wa tacaala intaa haddaa ogashiin marka qaabka u abuuranteen qaabka la inii sameeyey noloshiinnii hore geeridii qabrigii tanna waa imaanaysa iyadu uma kabacdi qabriga kabacdi qofkii markuu dhintoo la aasay idaa shaaa hadduu doono alleh ansharahu wuu soo bixinayaa insaanka kallaa ka jooga insaanow inkiraadda ad inkiraysid xaqa iyo qiyaamaha jooji sidaa waa lagu fasiraa kallaa waxaa kaloo lagu fasiraa culimmada qaar kallaa waxaa dhaba kallaa xaqana waa lagu fasiraa mowta kallaada kallaa waxaa dhaba lamaa yaqdi lama imaanin insaanku maa aamarahu wixii alla faray lama imaanin insaanku wixii alla faray lama gudan insaanku wixii loo dira lama imaanin oo marka laga dhigo si guud laga dhigo insaan oo dhan kii muslimkaan xoogaa yaro gaabisaa ku jira gaalkiina waxaa ma samaynba ama la yidhaha insaankan loo jeedaa waxa weeye waa gaalkiiya wixii la amray diinta qaado islaam muslim noqo muumin noqo ma yeelin kallaa waxaa dhaba lamaa yaqdi ma gudan lama imaan insaanku maa aamarahu wixii alla faray lama imaanin qaybtii hore waxay ahayd insaanka wixii laga abuuraa la xusuusinayay haddana waxaa la xusuusinaya insaanka inuu ka fakero markaa dhalatay maxaad cuntaa maxaad cabtaa iyo waxaa la xusuusinayaa baqaa'ahu fi lxayaa maadaama aad dhalatay haddaadan cunno helin ma noolaan kartaa haddaadan cunno helin ma noolaan kartid waa inaa cunno heshaa waa inaa cabitaan heshaa alla wuxuu yidhi falyandur ha eego falyandur linsaanu insaanku ha eego ilaa dacaamihi cunadiisa ha eego waxaa loo jeedaa mukawanaadka ama cunadiisa waxay ka koobanta ha eego cunada bariiska lagu soo hordhigay ama baastada ama geleyda ama sagada ama say u samaysatay cunadaan fiiribal aayadaha keeni doono falyandur ha eego alinsaanu insaanku ilaa dacaamihi cunadiisa uu cunahayo bal ha eego sida ay u samaysantay alla wuxuu yidhi annaa annaga sababnaa shubnay almaa'a biyaha sabban shubitaan samada sare biyaha ka imaanaya annagaa soo shubnay afaraytum maa aladii tashrabuun afaraytum maa taxruhuun fii suurati alwaaqica soo kuma jirin markaan biyihii shubnay uma shaqaqnaa waxaan dilaacinay alarda dhulkii shaqan dilaacin biyaha samada ka yimid dhulkay ku da-een dhulkii waa dildilaacay soo maahan
alla wixii markay dilaaci ka bacdi fa anbatnaa waxaan ka soo dhalinay fiihaa dhulkii xabban mir ay dadku cunaan, sagadii, bariiskii, galeydii, qamadidii, mirta nool ay dadku cunaan baan ka soo bixinay. adi bal eeg dhulkan adag oo roob ku da-ay, waxaa ka soo baxaysa mir baa lagu aasay, waxaa ka soo baxaysa laan curdun oo jilicsan baa ka soo baxaysa dhulka dhexdiisa. adiga haddaa tira farta geli ma gelin kartid. amarka yaa siiyey roobkan allaa soo di'iyey, dhulkana asagaa dildilaaciyey, mirtaana asagaa soo bixiyey. adi ma soo bixin kartid. bini aadamka qolada ugu dadaal badan oo dhahdaa waa isku filan yihiin xagga maaragtay cunnada, wax badan bay dhulkay wax badan ku aasaan. bas dhulka ayaku male, biyahana male, ciiddana male. waxaa la geedku wuxuu u baahan yahay afar wax soo maaha. wuxuu u baahan yahay ciid iyo biyo iyo hawo iyo qorax soo maaha. afartaas u baahan yahay. afarta yaa bini aadam maa shaqa kula marka. ciidda asagu male, biyahana male, hawadana male, cadceedana asagu male, iyo qoraxda midna male. asagu shaqa kaliya waa dadaalaa, waa aas-aasaa un. kii aas waaya nasiibkiisa, qaxooti ha noqdaa tugsado. fa ambatnaa waan soo bixinay fiihaa dhulkii waxaan ka soo dhalinay xabban mir ay dadku cunaan, wa cinaban cinabka si gaaraa loo xusay. cajaa'ib buu leeyahy cinabka ogaada dee iska ogaada cinabka si gaaraa loo xusay. cajaa'ib buu leeyahy cinabka. wa cinab baan soo dhalinay iyo wa qadban laan curduna. qadab waxaa la yihahdaa laamaha curdunkaa la iska cuno. geed nuuc kasta ay yihiin, sheeg murud cardunka yahay oo jilicsan yahay oo la iska cuno ayaa la yidhaha qadbiga. laamaha curdunka geedku wuu jilicsan yahay waa la iska cunaa, laanta cardunkaa loo jeeda. wa zaytuunan zaytuun ayaan soo dhalinay. zaytuunkuna cajaa'ib buu leey waa aragtee saliiddiisa isaga yaab buu leey. isaguna si gaaraa loo sheegay mow. geedii baa gaar, cinab gaar baa loo sheegay, zaytuunkiina waa la sheegay. hadda waa saliiddiisa iyo waxbaa lagu daaweeyaa, aad baa lagu bogay zaytuunka. wa nakhlan geedka timirtana alla wixii waan soo bixin. isaguna cajaa'ib buu leeyahay. geedka timirta dee laga yaabay dadka qaar inay moodaan in miraha keliya laga cuno. intaasoo nuuc carabtu ay u isticmaashaa. mirtiisaa la cunaa, quwaaxiisaa la ruugaa, maxaan ku rahdaa guryaha lagu dhistaa, waxaa laga sameeyaa dermaha laga sameeyaa, goglaha laga sameeyaa, waa la harsadaa. yacni ana laftoona timir nooma baxda, laakiin cajaa'ib bay timirtu leedahay, aad bay u yaab badan tahay. wa zaytuuna wa nakhlan wa xadaa'iqa waata si guud, wa xadaa'iqa beero waa basaatiinta ayaa alla wixii baan u soo bixinay gulban waaweyn. gulbiga geeda waaweyn oo sal waaweyn oo laamo waaweyn leh, gulbiga leh. waa luqunta weyn maarta baa leh, luqunta weyn waxaa loo jeedaa geeda sal waaweyn oo laamo waaweyn baan u soo bixinay. macnaha waa maxay? waxay dhihi jireen qolada nuxaadu min idaafati yani min dikri alcaam bacda alkhaas. markii lasoo xushay kuwii cinabaa xabban wa cinaban baa la sheegay, zaytuun wa nakhlan wa xadaa'iqan waa beertii oo dhan waaye. beere nuuc kastaa ku yaalla dee beerta. wa xadaa'iqa beerahaan u soo bixinay gulban geeda waaweyn, sal waaweyn leh ama laamo waaweyn. wa faakihatan baan u soo bixinay. wixii waata wixii hore waxaa aheen waxyaalaha oo de ama loo cuna xabadda lagu noolaado. si gaara faakahaduna waa caam ayaduna. wixii aan ahayn mirta dee faakahadu wixii lagu faakahaysa dee tafakur loo cuno oo aan loo cuni cunno ahaan waa qudaarta anwaacdeeda. wa abban daaqa xoolaha ayaan u soo bixinay. waxaan u soo bixinay faakihatan waa qudaartii, iyo wa abban waa daaqa xoolaha, xooluhu ay daaqaan. alla wuxuu yidhi intaa maxaan u soo bixinay oo intaa maxaan u samaynay? mataacan waxtar, raaxayn, lakum adinka laynii raaxaynayo, wali ancaamikum xoolihiina. alle maxaan saa u samaynu yidhi subxaanahu wa tacaala. intaa biyahan cir ka keennay, dhulkaan dildilaacinay, iyo intaasoo mirahan ka soo bixinay oo kala duwan, saa maxaan u yeelnay? adinka dartiin, adinkaan inaad ku nafcisaan oo ku raaxaysataan ilmo aadama, iyo wali ancaamikum xoolihiina. adinkumaa ku dheefsanhaya. ayaan baa noolaatanaye. intaas waa qeybta ayana saddexaad. qaybtii labaad weye suuradda. qaybtii u dambeysay saddexaad waxaa weeye qiyaamihii. adduunkii waa dhammaaday. fa idaa jaa-ad hadday timaado, qaybtaan dhexe marka oo labaad waxa weye qofku inuu fakeraa, maskaxiisa ka shaqaysiyaa la rabaa, oo aayaadka kowniga ku fakero oo rabbi ka shukriya subxaanahu wa tacaala. fa idaa jaa-ad hadday timaado assaakhatu
tii qaylinaysa tii dhawaaqeedu dadka dhagatiraya saakhadu waa qaylada qofka dhagatiraysa qaylada xataa dhawaqeed marka xataa akhrinaysa moogtahay adaaba qaylinaysa soomaan mad dheer waay fa idaa jaa'at isaakha dhawaqeeda hadda ku dhawaaqaysa iyo qaylada hadhow waaba isku dhow yihiin hadhow waa xoog badan tahay laakiin dhawaaqaysa laftigeeda waa mad dheer waay yani lafdigu wuxuu tusinayaa waxay ahaan doonto maalintaas waxa dhici doona waa qaylo dadku la dhaga beelaan taa qiyaamadii daaman soo marna soo maahayn yowma maalin bay imaanaysaa yafiru lmar'u qofku uu ka carari doono min akhiihi walaalkii wa ummihi hooyadii wa abiihi aabihii saaxiibatii haweentiisii wa baniihi ilmihiisii maalin yaabla weyba dadkii dadka kuugu dhawaabaa ka cararaysaa siday kuugu kala dhowaayeen walaalka isku meel baa ku soo korteen yaraantii baa wada noolaydeen si fiican baa isku taqaaniin waa weynaateen markay dhib ku qabsado isagaa wacan jirta walaal waxaa leeyahay dhibkaa lagu yeertaa gacan buu ku siin jiray garab maanta isagaa ka cararaysaa walaalkaabaa ka cararaysaa maxaa lagu xejiyey wa ummihi hooyo waa malja'a alwalad waaye waa dhashay waa nuujisay dhabarkay ku qaaday dhabtay saartay waa soo barbaarisay markuu wax yaroo culaysa dareemo hooyuu soo carari jiray ayadii uu ka cararaya marka hooyadii walaalka hooyaa ka dhow ogow aabe wa abiihi aabbihi aabbana waa ka cararaya qofka aabbihii dhalay waayo oo dhaqaaleeyey oo dhuuniyo siin jiray oo dhib kasta u soo maray ayuu ka cararaya wa saaxibatihi tan si gaar ah baa loo sheegay hooyo aabba waxaa ka sii dhow saaxiibadda haweentaada hunna libaasun lakum wa antum libaasun lahunna qofka hadduu dhinto haween dhaqi karta xaaskiisaa ka jira qofka hadduu ninka raggaa dhinto oo nin dhaqan la waayo yaa dhaqi kara ma taqaaniin xaaskiisa waa u bannaanta in cawradiisa aragto isaguna waa dhaqi karaa xaaskiisa ayadiina waa ka cararaysaa ayadiina waad ka carari haye wa baniihi ilmihiisa isagu dhalay ilmahaagu waa jirkaaga qayb ka mida ilmahaagu jirkaaga qayb ka mida wey oo qofkan bini aadamka cali wuxuu ka kooban yahay aabbihii zaa'id ummihi asaga wey labadaas ka koobanta hooyo aabbaha la isku daraataa adiga soo ma marka culimmadu waxay yidhahdeen qofkan cararaya muxuu cararayaa qofkan qaar waxay yidhahdeen culimmada waxaa looga jeedaa qof muslimay oo dadkan qaraabadana ay gaalo ahaayeen diintiina aan gaarsiin wuxuu ka cararay inay ku dhagaan oo dhahaan ilaahayow diinta nama soo gaarsiin ay farqa qabsadaan inay farqa ku dhagaan oo yidhahan ilaahayow diinta islaamku qaatay wuu muslimay aduu ku rumeeyey annana waxba nooma sheegin farqa inay ku dhagaan bimacnaa qofkii ku tacadiyey xaq ay qaraaba lahayd wuu ka cararin ama culamada qaar waxay yidhahdeen waxaa looga jeedaa qofku miyir maa maqan yahay qofku inuu qof kala xusuustaba miyir uma leh caaisha nebiga sala allahu caleyh wasalam baa wuxuu yidhi dadkaa lasoo shirinaya ayakoo qaaqaawan oo buuri qaba oo maaragtay oo kabala caaishaa tiri xishootay yaa rasuulallaahi ragga naagu ma isfiirinhayaan bay tiri caaisha way xishootay waxaa tiri dadiba la qaawan yahay soo ceeb maaha muxuu nebigu yidhi sala allahu caleyh wasalama yaa caaisha alamru ashaddu min an yuhimahum dalika ow kama qaala sal alla alay wasalam caaisha arrintu waa ka culus tahay in qofka ay murug geliso ama mashquuliso fiiro inuu qofka la fiiriyo adigu maxaa qiyaamo ka sheegaysaan dib madfac meel ku soo dhaco laba isma fiiriso dib madfac soo dhaco hadda annagoo fadhina mid qaawalo ordahaya arkaysaan dhar boodanba oo maradii ka cararay sababto balaayaa ku dhacday culus qiyaama iska daa warkiisa asaga yowma maalin weeye bay imaanaysaa faidaa jaa'at isaakha yowma maalin bay imaanaysaa yafiru carari doono almaru qofku min akhiihi walaalka asaga la dhashay oo garabka u ahaa wa ummihi hooyadiisii dhabteeda uu kusii jiifan jiray oo caloosha ku soo qaadoo dhashay wa aabbihii maaragtay dhibya dheefba u huray wa saaxibatihi haweentiisii uu la saaxiibo sariirta la seexan jiray ayuu ka cararhayaa wa baniihi ilmihiisii cararka maxaa keenay likulli imri'in qof kasta oo minhum ka mida bini aadamka yowmaidin maalinta
sha'nun xaal baa haysta hawl baa haysata yuqnihi ku filan qof kasta hawl ku filan baa haysata uusan meel kale ka aadi karin qof kasta asagaa isku mashquula yowma ta'tii kullu nafsin tujaadilu can nafsihaa wa tawafaa kullu nafsin maa camilat wahum laa yudlamuun qof kasta asagaa isku mashquul ambiyadii maxay leeyihiin nafsii nafsi likulli imriin qof kasta waxaa u sugnaada oo minhum ka mida bini aadamka ama intaan soo marnayba yowmaidin maalinta qiyaamada sha'nun arrin xaal yuqniyihi asaga ku filan oo uusan meel kale fiirin karin maxaan soo marnay suuradda bilowgeedii nin wanaagsan oo indhoolo ah oo xaqdoon oo nebigu u yimid sala allahu calayh wasalam iyo koox gaalaha odayaalah oo nebigu la fadhiya sala allahu calayh wasalam oo xaqdoon aan ahayn ee nebigu rabo sala allahu calayh wasalam inuu hanuuniyo qiyaamana labaa loo kala baxay shalay waxaan soo marnay suuratu naazicaat fa amaa man daqaa sooma horreyn kuwaas waxaa la hormariyey kuwii duqyaanka sababtoo aayadda fircoon oo daaqiya kuwii diiday qiyaamaha taasaa la hormariyey dignin culus bay ahayd hadda waxaa la hormarinayaa dadkii fiicnaa maadaama ninkan fiican qisadiisu ay horreysay wujuuhun wajiyaalo yowmaidin maalintaas musfiratun waa ifaysaa daaxikatun waa qoslaysaa mustabshiratun waa bishaaraysanaysaa maalinta qiyaamahada wujuuh wejiga qofkaa laga akhristaa wuxuu yahay wejigu waa maxay maxaa leeyahay baasaboor may dheheen wejigu wejiga qofka waxaa laga akhristaa hadduu faraxsan yahay hadduu naxsan yahay hadduu ladan yahay hadduu dhiban yahay wejigaa laga akhristaa marka de qofka dhan baa hadda loo jeedaaye wujuuhun wejiyaalo yowmaidin maalintaas qiyaamada musfiratun waa ifhayaan iftiin baa ka muuqda iftiin baa ka muuqda wejigood ka garanaysaa tacrif fii wujuuhihim nadrata naciim soo ma ahayn daaxikatun waa qoslasha aad bay u qoslaysaa waa fii suurati alxaqan u tegi doonaa marka kitaabka la siiyo haa muqra'u kitaabiya warkaala ila akhriya kitaabkayga aad buu u farxaya mustabshiratun waa bishaaraysanaysaayo dee jannaa lagu bishaareeyey soo maahan taa waa midii fiicnayd allah nagu daro wa wujuuhun wajiyaalo yowmaidin maalinta calayhaa korkeeda waxaa ahaaday khabaratun boor baa saaran boor baa dusha ka saaran soo ma jeedi wejigooda boor baa saaran tarhaquha waxaa daboolaya qataratun mugdi madow baa sii daboolaya qataradu waa qaaca asna waa isla mugdi un wey mugdi baa daboolaya wejigooda iftiin ma leh wax iftiina kama muuqdaa soo maa mugdi baa dusha ka saaran kuwaas waa kuwe ulaa'ika kuwaas xun tacbiirka waa maaragtay baciidka ishaarada baciidkahay waa liiditaan kuwaas xun ee madmadoobaaday ee inkaartu ku dhacday hum ayaku alkafaratu waa gaalada aan diinta rumayn ee caqiidahaan aan u qaadan oo qalbigooda aysan gelin alfajaratu xumaanfalooyaashii waayo kufriga waxaa weeye ictiqaad ahaan waa gaalo oo ma rumaysana fal ahaanna waa fajara waayo say u dhaqmahayaan dil iyo dhac iyo dulmi iyo kufsi iyo been iyo intaasay ku noolaayeen caqiid ahaanna waa gaalo dhaqan ahaanna waa faajiriin waayo ulaa'ika kuwaasi hum ayaku alkafaratu waa gaalada aan rumayn diinta xagga qalbigooda iyo damiirkooda alfajaratu xumaanfalooyaasha ahoo faajiriinta xagga dhaqanka suuraddu marka maxay noo sheegaysaa labadan loo kala bixi doonaa oo dadku ay u kala bixi doonaan waa inaad ku dadaashaa midka wejigiisu ifaayo ee qosol hayee faraxsan inaad noqotid kuwaana aad ka fikirtidoo aadan hadda qiyaamana kaga sheekeynaya limaada inaan u diyaar garoonaa la rabaa marka kuwa fiican wejigoodu ifaayo qosol hayee bishaaraysanaya kuwaas allaha nagu daro kuwaan xunka ilaahay naguma daro wallaahu subxaanahu wa tacaala aclam sala allahu calaa nabiyina maxamed